السلام عليكم أصحابتا على soo dhawaado maanta waxaan aadnay deegaanka Daarussalaan waxaan ku dhahay waa very beautiful place Muqdisho waxa la dhihi karaa waa meesha ay u dalxiis tagaan dadka reer Muqdisho dhan waa deegaan aad u qurux badan waxa laga helaa dhammaan xayawaanada noocyadooda kala duwan waxaan ku dhihi lahaa dad dalxiis u baahan tahay wallahi billahi taala go to Daarussalaan sidoo kale waxaa jiro dad aad u jecel xayawaanada duurjoogta هودي أن ولقوا بادية يمال أن تجينه مارك عن هراء أرج لباح وكله Daarussalaan waxaan ku soo aragnay beer kala gudahay leedahay oo waxa lagu xanaanayaa xayawaanada noocyadooda kala duwan sida libaaxa iyo maaragtay waraabaha iyo guduudanaha si kooban hadaa kaaga sheekeeyo Daarussalaan waa magaalo dhammaan la dhisay oo ay ku nool yihiin dad qurbo jooga magaalada waxay u jirtaa Muqdisho 7 kiiloomitir sidoo kale inta ku sii soconay waxaan aragnay dhismayaal aad iyo aad u qurux badan maaragtay iyo deegaanka geedaha lagu abuuro kala hada aragto waxyaabaysa ku environment-iga soo jiidana dhismayaal cusub oo casri ah oo ku yaalaan inkastoo xaafadan ku badan yihiin dadka diaspora ay soo laabtay Soomaali diaspora waxaan ku dhahay you can enjoy. haatan waxa ku sii dhownahay beertii guryahan u jeedaan waa guryo dhamaantood hab casriyaysan loo dhisay oo isku wada dhagdhagan haddana beerta soo gaarnay halkan beertu waxa ka baxay geedo aad iyo aad u qurux badan environment-iga waa laga dadaalay haddana waxaan soo diyaarnay in beerta galno boonooyin Kenya soo jaranay halkan u jeedaan waa beerta gudaheeda waxaan ku dhahay qurux meel walba everything is green wallahi hadaa meeshan imaato waa meesha ugu qurux badan Muqdisho amnigeeda wax walba oo dhameystiran yihiin halkan niman dhalinyaro sawir isaga qaadqaadayo badana dadku waxay imaadaan xilliyada weekendiska khamiista iyo jimcaha maalmaha ciidaha wallahi waxa iskugu imaado bulsho aad iyo aad u tiro badan hal mid aan beerta ku jeclahay waxa waaye ayada dhan wada cagaar waaye beerta Daarussalaan mar dhown waxa isku diyaarinaynaa in aadno beerta oo xayawaanada waxaan ku dhahay waxa meesha ka buuxo xayawaan aad iyo aad u tiro badan aniga qudhaydu waxa aad u xiis qaba libaaxa aan arko waxa ugu dambeysay 2009kii mar hargeysa tagay beer hargeysa ku soo arkay laakiin meeshan xayawaan aad u tiro badan ugu sida guduudanaha halka muqshabeelal dhaha dawaco gorgor koronyo wax walba waa joogan deero waan kanaanik odayga ahaa libaaxyo inkastoo aad u yar yihiin libaaxyadan laakiin deennik libaax waa libaax laba ma hal dhigi jiray ninka odayga ahaa waa haduu yar yahay iyo haduu weyn yahay xabsidiisu wataa wallahi Allahu akbar ninkan ilaahay muxuu ka taxadiray libaax yaa wax kale haddana waa nimanka odayaasha ahaa meeshan waxaan taaganahay waa ku heesanaaba waa jimceysanay madaxa la baxnay soo rag badan ila socday marka waxaan leenahay guys nala socda ilaa at the end of the video dee hal mid idin xasuusinayaa dee baasha subscribe-ta waa inaad dhag noo siisaan saan hore ugu soconno muuqaalaan soo dhigno aad u qurux badan mar walba waxaan isku dayaynaa inaan sare u kacno insha Allah soo bahalkan jibiso waaye qof walba wuxuu jecel yahay baashan afkeeda inaan loo soo dhaweynin laakiin dusha laga saaro bismillahir rahmaanir rahiim beerta waxyaalaha kale ku soo arkay waxaa ka mid ah bahalka keelaha la dhaho bakeele arnabun waaye arnabun carabiga marka la barnayo arnabun ibriqun udunun ay bilaabanaysi barashada carabiga sidoo kale waxa la balanboola la dhahaa meesha joogo gorgor waxaan ku dhahay bahalkan digirina la dhahaa asiga digirin meelaha duurka lagu arkaa waxaan ku dhahay digaag wax yar ka dhaadheer yahay ka weyn yahay waa kaasaatay at the end of the video waa isla soconaynaa insha Allah